waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dil xalay toosaqdii dhexe ka dhacay degmada Hodan ee gobolkan Banaadir waxaana dilkani loo geystay darawal kaxeynaya mooto bajaajka. Darawalkan mooto bajaajlaha ayaa la sheegayaa inuu xilligaasi isbitaal u waday haweeney fool ah oo ay ahaayeen deris. Dhanka kale askariga dilka geystay ayaa la sheegayaa inuu goobta ka baxsaday. Maxamed Aadan Ismaan oo ka mid ah darawalada kaxeeya mooto bajaajka oo gaaray goobta ayaa sharaxaya siday wax u dhaceen. haddii aan nahay bajaajley oo soo qaaday gabar markaas fuulanaysay gabadha guriga ku deganay markii horeba fiidka hore waxay tirinay oo xanuuna qabanayo waxaa laga yaabaa in xanuunku igu dheeraado marka haddii xanuunka uu aad ii qabto waa ku soo kicinaya walaalow ii ogow marka adii xilligii saxuurtaeedu soo qaaday gabadhii iyadoo foolanaysa si wiil la dhashay markuu maraayo saygaana aagaarkeeda nin kaloo askari oo luuq ka soo baxay meel la yihahdo Kashmiir oo xabad kaga soo riday marka madaxay jirisay walaalkiisa la soo orday mootadii nasiib darro waa gadoontay mootadii oo burbursan iyo asay wiilkii meydkiisii aad yaalaan isbitaal Madiino wax dhaxmaray oo xataa joog iyo meesha point mine uu ku helay ajabka meesha ajabka hoosaydan marka inta la soo gaarin marka ka timaada beerta jaadka ajab ku yaala hortiisa marka meesha luuqu ka soo baxay askariga wiilkaana wuxuu waday wiilka la dhashay iyo gabadha iyo laba gabdhood la socdeen oo waday xabad uu ku soo riday xabadii aan ninkaan madaxa ka haleeshay wax ka u horeeyay oo xumaana iyo xataa isaqoon oo jiray maysan jirin adiga baaray 10 saac oo ruuy dhiman meelahaas xilligaadii saac 45 meelahaas dhacuba ku dhintay markii istaalka la keenay meedu ah markii istaal gudihiisa la keenay meedu ah wiilkii la dhashay meeshu ku shooday halkaan baad wada joognaa marka aad iyo aad waa arrin naxdin badan marka kulli waa loo qiiraysan yahay xanuun aan innaba la soo koobi karin lana halkaana lagu soo ishee lagu cabiri karin inta uu leeyahay ayaa noodahay dhammaanteen marka hooyadii wiilka dhashay eheladii dadkii qaraabada la ahaa diriskii meesha la wada dhoobay. Magaalada Muqdisho ayaa aad ugu soo badanaya dilalka loo geysanayo darawalada kaxeeya mooto bajaajka waxaana xusid mudan in sidan oo kale 2 toddobaad ka hor askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya uu dil ugu geystay darawal kaxeynaya mooto bajaaj isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan. Inkastoo ay sheegayaan saraakiisha booliska in gacanta lagu dhigay askarigii dilka geystay, sidoo kale dilkan ayaa qayb ka noqonaya dilkii labaad ee intaan ku guda jirno bisha barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Daahir Abdullahi Dulmidiid Media Muqdisho.